أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore waxaan idinka codsanayaa dadweynow inaad nabiga ku sallidaan ilaa iyo maanta waynu fadhinay ku salliya rasuulka salawaatullaahi wa salaamuhu calayh. ama bacd kolley wakhti dan baa lagu jiraa, maantoo dhan waynu soo fadhinay, waa la daalan yahay. hadal badan inaan sii galo ma doonayo, waayo marka la daalo dadku dhegaysi uma laha hadalka badan. sii geli maayo horta anugu ganacsi maanta anugu waxaan sugaanyahan ee siyaasi ma yihi, laakiin siyaasadda iyo sugaanyahanku waxaa la yidhaha xagga hooyay ka walaalayeen, waayo waxaanu ka hadalaaba waa siyaasad weyn. in muddo dheer ah waxaan cimrigayga u malaynayaa sida la ii sheegay 50 inaan dhashay, laakiin garan maayo faranjigii waddanka joogi jiray markaas. laakiin waxaan kaalin qaaday garaadsaday iyada oo hal dawlo oo Soomaaliyeed jirto oo labadii gobol ee u horreeyey 5tii gobol ee gumaysigu u kala jaray Soomaalida ay laba intay xoroobeen midnimo qaateen, 3dii kalena loo baaqayo oo loo halgamayo. mabda'a caynkaas ayaan ku barbaaray, weligay ma ay gelin qalbigayga kala qaybin iyo kala googo Soomaaliyeed. waxaan u baaqaay oon ku suntanahay oo dadweynaha Soomaaliyeed ugu yaqaanaan ee sugaanteeda dhegaystaa midnimo Soomaaliyeed, laakiin oo 5tii Soomaaliyeed ah, laakiin cadaalad ku dhisan. aan soo qaato tixgabayahoo aan beri tiriyey, aan tudciya ka soo qaatee. isticmaarku siduu noo jarjaray jeerkii nala boobay, jidhku way dubaaxshaa markaan sii jimiimico jigjigiyo wajeeriyo intaan jarar u baaqaayey ee aan jabuutay lahaa jalahayay kaalay, maantana jabkii soo hadhaa muran ka jooga. maantana jabkii soo hadhay waa muran ka joogaaye, allow yaa xuduudahan jinniyo ooda naga jiida, allow yaa halbowlahan jarjaran joojin kara dhiigga, allow yaa shacbigu waa jilcaye gees u wada jeesta. markaa cadowga jeedaalisaan jooga garabkiinna, jaxar ku hadli maayo run baan kuu jilmadayaaye. markaa cadowga jeedaalisaan jooga garabkiinna, miyaydaan midniba waa janne jimicsan oo dhowrin. waxa kale oo aan ka soo hor jeedaa anigu fikir ahaan waxa la yidhaahdo federaal, waxaan u qabaa inay tahay qabyaaladii oo loo cumaamaday oo la sharciyeeyey oo suur loo xidhay. waxaan u arkaa xooggii Soomaaliyeed oo la qaybqaybiyey oo hadday maanta dhibi ku timaado aanay qolana qolo u gurmanaynin. waxa aan in badan ka gabiyey oo ka hadlay, tusaale ahaan haddaan soo qaato waxaan markii aan ka hadlayey waxaan la yidhaahdo federaalka, siduu cadowgu noo kala sidkee saxalku noo fuulay, caqligii wax suuradin lahaa waa la saanyaday. 9 dawladood oo yaryarisabi ma deeqaan, waa sida cadaawuhu rabiya saalax waatuhu. sacabkayga oo madhan markaan sare u taagaayo, Soomaali weyn oo midaan saadiyaa weli, ha yeeshee suntii lama daweyn sancadka lahayd. waa qabyaaladii sidaba u fadhidaa, waaba la sharciyeeyey. waxaan aaminsanahay federaalku inuu ku fiican yahay dowladaha uu bableeshigoodu fara badan yahay oo loo jeedo maamul daadejin, ama dowladaha wax ku kala duwan sida Etoobiya oo kale, luuqa iyo diin iyo wuxuun. Soomaali waa qoys, waa isku af, waa isku diin, waa isku mid. wuxuu yidhi xaaji aadan afqallo ilaahay u naxariistee,
nin Soomaali diidiya annagu waaba kala doowe diintii iyo afkii iyo caadadiiyo daatadii midabka iyo aradka aan wada degnaa daawo noo xidhaye dadkoo ururay baa lagu helaa dawlad iyo xoog ummad yaroo intaa laga qaybsantay waa mushkilad kale marka waxaan leeyahay iyada oo ummadda midnimadeeda la ilaalinayo cidna aan lagu xadgudbin tusaale ahaan waxaan mararka qaarkood ka maqlaa idaacadaha ama tiifiyada rag weliba ku hanjabaya oo leh xoog baa lagu soo qaban doonaa Soomaaliland anigoo Soomaali weyn aaminsan haddana tahdiid iyo xadgudub Soomaaliland loo geystay ma ogoli wuxuu yidhi Faarax Nuur abwaankii la oran jiray adeerkay ahaa nin kale oo adeerkay baa u gabiyo oo yidhi waanu idin layno waanu idin jajabin dabeetana wuxuu yidhi Faarax bilaa wuxuu yidhi wirjiqdii xakabkii iyo wagacdii la jidii iyo guutadii wadnadiid gaaskaa mid ka weyn baa naloo soo wacayaa bilaa caynab ku weedhayoo wadaaguu kula meeriyo sidii awlal weyn ku wadaagni dabad hadalkaas wuxuu u socdaa nin laba nin oo idaacad ka hadlaya maalin dhaxdaas ahayd uma jeedo ummadda Soomaalida kale marka waxaan leeyahay anigu waxaan u taagnahay ummadda Soomaaliyeed midnimadeeda waxaan ahay abwaan bulshada dhexdeeda ku leh dhaga badan oo dhageysta ayaan ahay waxaan cadow ku ahay oo nacabahay qabyaaladda haddaan tudc yar ka soo qaato gabayadaan qabyaaladda kaga hadlayay qabyaaladda dhibaatadeeda niman yahow qabyaaladii hadday qolo daryeelayso quwad laga cabsoodiyo haddii qiimo lagu yeesho quruumahaba Soomaaliba u qanisanaan layde raggan qabarsanaaciga diriya qalabka duulaya ee inay khalqiga quudiyaan mooday qirahooda qarba buusa soo wada mariyo qabiya maandhaafe marun bay hoggaanka u qabteen qaar ducaysaniye markaa talada qaadaa dhigtee qunuga faallooto qaran jabay qabyaaladii waxay qabatay sow maaha waa qool ibliis nagu xidhoo qoorta noo sudan qarqarsiga haddii laga furo calanka loo qaado qormo kuma egaatiya halkii qoobka loo dhigay qod markay ridaba saa dambay soo qumbacataa qashin kama dhammaade waxay qaalma rogotaaba sow waxa naftaadoo quriyo qoysku badan maaha qabyaaladu waynu naqaanaa waxa waa basal way wareegtaa walaalkaa kala bahdatin bay soo gaadhaa waayahay markaan waxaan dagaal kula jiraa saddexda cudur ee Soomaali ragaadiyey qabyaaladda iyo qaadka iyo midnimo la'aanta saddexdaas dagaal kula jiraa ilaahayna waa la kaashanayaa waxaan se leeyahay waxa la yidhi doqoni way qufacdaaye meel laga raacay ma taqaan waynu dhibaataysannahay ummaddii waa isu keeni kari la'nahay markay wax la dhisay wax kala sii dumaaya marka tixgabayaan tudciga ka soo qaato barigeenu 60kii dowladnimada qaadanay dimuqraadiyad baynu qaadanay dowladdii shuuciga ahaydna shuuciyad bay qaadatay haddana waynu dunayo qabyaalad baynu qaadanay qof walba halkiisay ugu soo gashay markaa sawir yaraan ka bixiyo dimuqraadi soo wada maray iyo dowlad shuuciya dulligii qabiilkiiyo la arag dabargu'iisii saddexdaba haddii la isku dayey daawo laga waa xaqa lagama doode ilaa diintii lagu laabto miyuu qaranku degayaa wixii dumiyey baa yaal waxaan ku soo ururin lahaa xalka ummaddu waa yaallaa waa ilaahay diintiisa inu qaadanno iyadaa inuu cid walba dhammaanteen inaga dhaxaysa cidina gaar uma laha dawada aynu ka doonnay iyo xalka aynu diinta islaamka ka doonnay inaan meelo kale iyo jaamacadaha Maraykan ku yaalla inaan ka daydayn wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan odayaashana ka codsanayaa aniga haddii ay igu gargaartaan doorashada codka ay siisaan anu waxaad igu ogaataan inaan ka shaqaynayo waa midnimada ummadda iyo qabyaaladda dagaalkeeda waxa kale oo aan dadaal ka geli doono haddii alla yidhaahdo odayaashu waa cabanayaan baa la yidhi in mansabkii odayaashu ay lahaayeen iyo ixtiraamkoodii wixii aan ka qaban karo inkastoo la yidhi awrka hore awrka dambe buu socodkiisa yeeshaayoo kolley qoladii hore aan la mid noqon doono haddii ilaahay yidhaahdo waxaan isku dayaynaa inaan wixii aan odayaasha ka qaban karin arrintoodana wax ka qabto wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wabilaahi towfiiq